هذا حنقول يا فضيلة الشيخ مصطفى حاج إسماعيل قيبت لوالي حديثك واتبع السيئة الحسنة تمنع فليتفضل مشكورا سلام عشان يتوفق يقول بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله النبي عليه الصلاة والسلام xadiidkaasi waxa uu ku tilmaamayaa xumuhu hadduu kaa dhaco wanaag ka dabagee wuu tirtirayaa insaanku sidiisaba waa insaan straight line uma socdo qofka bini aadamka noloshiisu inta badan waa zigzag kor iyo hoos buu u socdaa waxaa waajib laynagaga dhigay furuudul caynka inaynu ilaalinno markaa meel ka sarraysa inaynu istaagno si zagzaaggeennu markuu dhaco aynan u hoos weydaaranin sunan tiro badan baa laynoo jideeyey marka waxaa laynaga mamnuucay waxyaabo mamnuucaat ah iyana waxaa lagu xeeray waxyaabo makruuhaat ah si aanad kuwa hoose u gaadhin se bini aadam baa tee haddii qaladba kaa dhaco ilaah ghafuuru raxiima baa jira waxaa layna faray markaa inaynu wanaag ka dabageyno sayi'o kastoo inaga dhacda wanaaggaas baa tirtiraya waxay dhahdaan culammadu dihaabu sayi'aat aw idhaabu sayi'aat laba qaab bay u dhacdaa midi waxa weeyaan inaad marka horeba ku dhicin waxyaabaha keena waxaa ka mid a xasanado aad badsato oo ilaahay subxaanaه wa tacaala qur-aanka markuu salaada tilmaamayo ina salaata tanhaa can اlfaxshaaءi wاlmunkar baa layidhi waxay kaa reebaysaa inaad fuxshi iyo munkar ku dhacdo yacni sayi-aday ka hortegaysaa intaanay dhicinba waxaa ilaahay subxaanaه wa tacaala qur-aanka inoogu tilmaamaya dhaqanno bini aadamku uu leeyay oo cidda qura ka badbaadaa ay tahay musalliinta iyo sifaadka la socda kuwa ilaahay ku sheegay ina alinsaana khuliqa haluuca idaa masahu sharu jazuuca wa idaa masahu alkhayru manuuca bini aadamku baa la yidhi sifada haluuca la yidhaahduu leeyahy oo ah khayrku markuu helana waa mid ku dhego aan sii daynin oo waxba bixinin dhibtu markay qabsatana waa mid catow iyo calaacal badan marka labada dhandhanna kuma fiicna keebaa ka badbaada xumahaasi ila almusalliin baa ilaahay yidhi dabeetana sifaad baa ilaahay soo taxay xagga dambena waxa lagu gebagabeeyey kuwa salaadooda xifdiya idan salaadu dhaqan xumadaasay marka horeba kaa ilaalinaysaa waxay dhahdaan cahdigii nebiga saxaabada nin baa la sheegay salaadda habeenkii uu kici jiray oo salaatuleyl laakiin weli haddana gacantiisu wax yaro qaadqaadi jirtay markaasay ka warrameen oo waxay dhaheen ninkani habeenkiina waa tukadaa waxna waa yaro qaadqaadaa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ina salaatahu satanhaah sidaa aa sheegaysaan hadday jirto salaaddiisaa ka reebaysa waxay leedahay markaa xasanadu marka koowaad hadday xasanaadkaagu fiican yihiin sayi-aadka way kaa ilaalinayaan haddiiba ay kaa dhacdana sayi oo dhan xasanaad tirtirta laakiin xasanadu waxay ku xidhantahay sayi-adu nooca ay tahay oo maalan xasanatu tawxiid dee waxay tirtirtaa shirki iyo wixii ka hooseeyey oo dhan markuu qofku tawxiidsado gaalnimadiisi iyo wixii ka horreeyey oo dhan buu ka baxaa xasanatu tawba waxay tirtirtaa kabaa'iru dunuub إن الإسلام يهدم ما قبله وإن الهجرة تهدم ما قبلها إن الحج يهدم ما قبله أي النبي التلمامي عليه الصلاة والسلام إذن حسنات كالنوع عاصي يا هديتي التوحيد أما هديتي حسنة التوبة وحي ترتيران سيئة الأمان تيدورن حسناتك إنت كهوسية هدات كبائر تكدركته إذا اجتنبت الكبائر أعماش عادية إنه سمين إنما سيئات كيريرون ترتيرا سيدي علماء التلمامان
وواكي نبي تلمامي عليه الصلاة والسلام صلاة إلا الصلاة ومكفرات لما بينهن انت ودا حيسي ترترتا جمعة إلا جمعة انت ودا حيسي ترترتا صون إلا صون انت ودا حيسي ترترتا إذا اجتنبت الكبائر ونبي هدي كبائر تلقى دركوه وهي وحي علماء انت بداني لهذا كبائر الطوبات بيوباهنت هلا جاي بين السؤال سويديسو والصلاة إلا صلاة هدي ترترتي والصلاة ولي بينتي كهر ريسي ترترتي جمعوه أسبوع محو ترتري مركا حصو هاري وهدي اللي هذا جمعي إلا جمعو ترتريا محو ترتري دون تار رمضان علينا أعماش إنه سمينا كلها موضة حوق بدنا أما مقبول موضة هوا مثل النبي عليه الصلاة والسلام وحتى المامية صلاة إنه تكنينه مدبا صلاة دي تصعها الله أقبلها ثمونها سبوعها سدسها خمسها أيها النبي سوى ذي إذا سفكة وكوذي جرنا صلاة دي مغرب لكن واسكبا يرتي 100% لكن لقى أقبلها وحلقة يابا 10% 12% دي 12% مركا الدنبي قد ما أنتو دلدل يسمى وضع ترتري كرتو إن شاء الله تدنبا انتهدي لغو كردينية marka waxoogaga jaabe aad la timi marka la isku dardaro waxbay nadiifin hadii wax ka soo hadhaan jibcihi baa nadiifin hadii wali wax ka soo hadhaan oo aan wali waxa waanay sayaadkaaguna de iska tira badayay waayo dhagtiya afka qura hadaynu eegno waagu markuu bariyo ilaa ya intaad ka seexanayso waxay u badan tahay inaad ama hadlayso ama mid hadlaya dhageysanayso intee ba khayraad u malaynaysaa marka waagu saaka markuu ku bariyaad soo kacday ilaa ya caawa intaad ka seexanayso ama adaa hadlayay ama mid hadlaya dhageysanaysay ama TV dhe ama WhatsApp dhe ama waxa doonta dhe intee ba xasana intee ba sayi'aad u malaynaysaa sayi'aadku marka waxba yaryaraysanayso dhan adigu wadaad baa too wallahi shantiina waa tukataa meelahana waad iska fiicantay maanta ba waa daldalmaysa waxaad sheegaysayna khayrku kuma badnayn idan waxaynu u baahannahay inaynu caqli soo jeeda yeelano ku dadaallo inaynu sayi'aadkeenu waa tiro badan yihiin inaynu xasanaad tiro badan ka dabageyno ilaahina waa ka tilmaamaya ilaa man taaba wa aamana wa camila camalan saalixa fa ulaa'ika yubaddilu allahu sayi'aatihim xasanaat kuwii toobad keenay ee iimaan laga helay ee camal wanaagsan sameeyey kuwa ilaahay wuxuu leeyahay sayi'adoodii hore qabla alislaam samaynayeen ilaahay wuxuu ugu bedelayaa xasanaat haddaba qofnaba kama maarmo toobad nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wassalaam ayaa tilmaamaya axaadiista saxiixa ah akthar min 70 mara aw 100 mara inuu toobad keeno isagoo macsuum oo ilaahay doortay isagoo ilaahay rasuulkiisiiya فما بالك dadkeena ka hooseeya maxaad u malaynaysaa marar badan cibaadadeena u baahan laga istighfaalaysto oo aanu cuntamin wax ilaahay la hortagaba inay noqoto inay dambi ka rogto daayeen walidaalka baa in badan waxaad arkaysaa nusuusta istighfaartu cibaadaadka dabadood bay soo aroortaa salaada markaynu tukanno markaad salaama naqsataa lagu yidhi waxa ugu horeeya aad tiraahdo ha noqdo maxay astaghfirullah 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 cibaadada samaysan maxaad ka istighfaalaysanaysa yani waxaad garanaysaa wax rabbi lala waajahay inaanay ahayn intii yaraydaadi ma ka samaysay dabeetana waa jabraanu naqs wixii gaabnidaadii baad rabtaa inaad ku dhammaystirto marka walaaladan waqtiga u soo koobayaa iyo waxaan ku gabagabaynayaa nabiguna calayhi salaatu wasalaam saasuu inoo tilmaamay wa atbici sayi'ata alxasanata tamxuha sayi'aadka tirada badan la aynu samaynayno xasanaat inaynu ka dabageyno wardi ha noqoto quraan la akhriya ha noqoto dacwo la sheega ha noqoto salaad la tukada ha noqoto dikri kaloo lala yimaada ha noqoto khayr inaynu ka dabageyno ilaahina wuxuu inoogu tilmaamaya aayadku sheekhu akhrinayay ina alxasanaati yudhibna asayi'aat saxaabigaa gabadha soo dhunkaday ee dhibtu ka dhacdayna markii uu la tukaday waxaa la yidhi miyaadna la tukanin haa buu yidhi bes waa kugu filantaa loo tilmaamay wuxuu yidhi ma keligii baa iskale arrintaa
ما يبو النبي عليه الصلاة والسلام بل لجميع أمتي كله ومضى يدور دنبا إسكاله سيئة داسي إن توبا لقد بدقيا ووحى إسلامك كجسو عيني هيبان ورنكرنا الدين بدن ودني ديال كريستيانتي وحينا لي نبي آدم دنبقو قالي يا عيسى لو دلدلي سوء خطيئة وقم يله إنك القرآن كوكوهن ولا تزر وازرة وزر أخرى آدم وحي وقال يعد كلا الله ما هيست هذا واحد قال يعد كلا الله ما هيست لكن إلهي باب كاسي توبض وينفري هي حسنات